ولسه هذا النهار يلا أنا وحن شقة كبلوني وزارة أرمها دود وحي مسؤول كتهي هب ماموس كقرنك إن دولته سندام وكسعته أو قالوا ياش سندام وكسعدان مرك عالم كله رقمي مرك قالوا كلا إذا صوب بعضه تذكر بروتوكول كإذن هبينية أو هب ماموس كندام كإذن هجاجينية أو مرك هريد كلاسي تلني ووزارة أرمها دود وزارة كستو وضن ككملنا واسداس marka isbarbaryac badan ayaa jiray mas'uuliyiin waxa jiray jagooyin ama xilal aad waaweyn haya oo dad aad uga xil hooseeyo wadanka yimid airportka inay ugu tagaan ay dhacdo ama waxa dhici jirtay hal mas'uul oo aan jaga sare haynin inuu madaxda dalka dhan isu maro oo mid walba xafiiskiisa ugu tago ama uu yiraahdo airportka la igu yimaado waxaan isku daynay in aan hab maamuuska qaranka soo celino soo nooleeyno qof walba dhigiisa jaga walba jagada ku faca ah in ay la xaasho in ay la kulanto in ay soo dhaweyso in ay iyaduna ay u soo gudbiso hay'adaha kala dawladda shaqadaas ay khusayso shaqadaas waxa xoogeeda qasku ka socda hay'ado kala duwan laakiin madaxtooyadu qayb weyn ay ka ahayd madaxweynaha xafiiskiisa iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo safaaradaha toos ayagu ula ballama ula xiriira caalamka haddaad aragto safaarad markay noogu taalla hadda nairobi oo kale haddii maanta golahani safaaraddan nairobi waraaq u qoro oo golaha u dhigmo oo kenya uu rabo inuu la xiriiro safaaraddaasi golahaas toos ulama xiriiri karto wasaaradda arrimaha dibadda waaxda maamuuska u qoraysa ee kenya kuwaasaa u gudbinaya baarlamaankooda sidaas ay ku dhacaysaa marka sabab annaga dawladdeena madaxtooyadeena qaranka safaaraddu toos ugala xiriirto oo hay-addii doonto toos ula xiriirto oo baarlamaanka la xiriirto ma jirto marka safaaradihina waa kala hadalnay madaxdii qarankana waa kala hadalnay golayaashana waan geynay haddana haddee dhaqan hore hal maalin ma lumayo ma dhammaanayo laakiin wax badan ayaa iska bedelay hab maamuuska qaranka marka waxaan dhihi karaa shaqo xooggan ka qabanay waana socotaa waana dariiq fiican ayuu ku socdaa waxaa kale oo aan qabanay in waxaad la socotaan sharci arrimaha dibadda in lagu maamulo ay tahay in baarlamaanku marsiiyey 2014 sharcigaas laguma dhaqmi jirin anigu sharcigaas waxaan geeyey golaha wasiirada waxaan sharcigan waa sharci golaha wasiiraduna waa maray baarlamaankana waa maray madaxweynuhuna waa saxay lagumana dhaqmo marka ama aan isku ogaano qaylo badana ka imaan doonta in aan ku dhaqanno oo ku adkaysano ama baarlamaanka aan ka codsano in sharcigan wax laga bedelo ama la laalo oo marka golaha wasiiradu taa isku ogaado baarlamaanku wuxuu naga yiraahdo golaha wasiiradu waxay gacanta u taageen oo isku raaceen sharcigu siduu yahay inaan ugu dhaqanno sharcigu waa sharci shuruudo badan xaaladda maanta jirta sida uu yahay oo dhan looma fulin karo oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah safiirka la magacaabaya 2 sano inuu wasaaradda ka soo shaqeeyay marka 40 safaarad baan leenahay haddaan rabno inaan magacaabno wasaaradda 40 ruux oo safiirnimo ka bixi kara ma joogaan marka xujooyinkaas waa leeyahay laakiin markii taas waa laga wada hadli karaa markii fursad loo waayo laakiin markii 5 6 10 u qalanta ay joogto in banaanka kale laga keeno nidaam maaha wixii awal sharcigaas loogu talagalay ayna ka mid ahayd marka sharcigaas waxaan goosanay inaan fulino waxaa ka mid ah shuruudihiisa safiirku inuusan 4 sano ka badan joogi karin safaaradda loo magacaabay 4 sano kadib waa in laga wareejiyaa ama 4 sano gudahood waxaa kaloo ku qoran safiirka iyo diblomaadku waa isku mid diblomaad kasta 8 sano ka badan isu geyn inuusan wadanka ka maqnaan karin macnaha haddii safaarad la geeyo 4 sano uu joogo oo mid kale la geeyo 4 uu joogo kadib waa in wasaaradda soo galaa si uu wadanka laftiisa u iloobayaa maaragtay intaa ka badan xaaladdu meeshay marayso marka 8 safiir oo u horeysay ayaan hadda soo celinay oo waraaqo u qornay 8 safiir ayaan magacaabi doonaa oo xilalkooda qabta kadibna haddana waxaa ku xigi doona raac kale oo ama safiir ah ama dad xilalka ka hooseeya qunsuliyadaha iyo qaar ka mid ah taasna marka sharcigaas arrimaha dibadda waa mid aan hadda inaan ku dhaqanno aan bilownay waxyaabaha kale noo qabsano waxaa ka mid ah dalalka dariska ah xiriir dhow in aan la samaysanay ugu horeeyaan dalalka
ama ciidamadu ka joogaan dalka ama khaasatan saddexda xuduudaha nala wadaaga yemen iyadu waa xaalad kale hadda ku jirtaa laakiin Djibouti Ethiopia iyo Kenya oo awalba xiriir dhow aan lahayn inaan haddana xiriirkeena sii xoojino waad xusataan ra-iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynuhu booqashadii ugu horreysay uu ku tegay Addis Ababa iyagoo isgarab taagan inuu miidiyaha ka hadlay oo uu sheegay in dowladda Ethiopia ay u aqoonsan tahay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii qaranka aan loona dhaafaynin oo aan goboladiisa iyo hay-adihiisa kale iyadoon dowladda dhexe loo sii marin aan macaamil dowladda Ethiopia aanay la samayn doonin wax iska yimid maaha wax maaragtay xiriirkeena iyo kalsoonida naga dhexaysa ay keenayso maxaabiis inay noo soo dayseen waad ogtihiin aan maxkamad la saarin oo maaragtay ciddii dhib wadana idinku sii haya ciddii kalena iska fasaxa naloo ogolaaday oo saa kusoo heshiinay dowladda maxaa la yidhaha Kenya sidoo kale xiriir dhow ayaan samaysanay labada dalba laba guddi oo isku dhafan oo golo wasiirro ah ayaa la sameeyey oo marba caasimad ku shiri doona waxaan rabaa inaan xuso masiibadii dhaweyd ee dhacday 14 Oktoobar dadku inaysan sidaa u arag waa laga yaabaa laakiin muddo maalmo yar oo usbuuc ka yar qof dhaawaca oo u baahan caafimaad dibadda ah oo dalka joogay ma jirin dhowr maalmood gudahood ayaa dhammaantood dibadda loo qaaday dadku ma arkaan xiriir caalami iyo xiriir wanaagsan oo aan la leenahay saaxiibadeen laakiin waxa weeye haddii aan la qaadi lahayn oo dhaawacyadaas aan la qaadi lahayn muran weyn ayaa ka dhici lahaa iyo maxaa loo waayey cid noo soo gurmata ama wax qabata dhinaca kale inkastoo taa hadda dowladda oo dhan ka shaqaysay oo mas-uuliyiinta oo dhan ku jireen maxaabiista arrinteeda haddaan ku laabto India inay heshiis la galnay wada ogtihiin oo 117 ay hadda marayaan mid kale ayaa geeriyooday markii anigu aan tegey kadib heshiis inaan la galnay maxaabiistaas xukuman inaan dalkeenna ku hayn karno inta xabsigooda ka dhiman iyadoo weliba heshiisku qorayo in dowladda Soomaaliya ay cafin karto madaxweynuhu cafis inuu u fidin karo dadkaas markii dalkooda lagu soo celiyo kadib sidoo kale ayagana waxaa wada hadal noo socdaa Seychelles oo maxaabiis naga haysa oo ayagana aan hadda mar dhow qorshuhu yahay in aan tagno haddii ay biraahdo bishan gudaheeda maxaabiista kale iyadana aan hawl ka galayno waa dalal badan oo kala hadlay qaarkoodna shaqeeyran ka bilownay Uganda ka mid ah Suudaan ka mid ah Cumaan ka mid ah maxaabiista Soomaaliyeed wadamo kala duwan ayay ku sugan yihiin marka arrimahaas ayaa ka mid ah arrimaha noo qabsoomay waxyaabaha kale oo aan wasaarad ahaan gudaha wasaaradda ka wadno waxaa ka mid ah in wada tashi iyo wada shaqayn toos ah hay'adda dhexdeeda aan ka abuurnay in aan sameynay shir joogto ah oo agaasimayaasha iyo wasiiradu ay ku kulmaan oo lagu kala tala qaato go'aan kasta oo ka dhacaya meeshana la isku wargeliyo si maarta mas'uul walba uu kaalin ugu lahaado maamulka marka culaysyada hor yaalla hadda qayb ka mid ah waa miisaaniyadda haba ugu darnaadeen oo ha ugu horeeyo safaaradaha qaarkood wadamo aad u qaali ah ay ku yaalaan anigu waxaan iraahaa shakhsiyan wasaaradda iigu badnayd waxay soo martay caalamka muddadii gaabneed oo New York aan safiirka ka ahaa ay soo martay marka safiirro iyo diblomaasiyiin xaalad adag ku shaqeynaya oo qaarkood mushaar aysan haysan ama qaarkood gaariga ay wataan darawalkiisa mushaar ay siiyaan aanay haynin waxyaabo kaloo badan oo hoos u sii galin dhibaato ay haystaan kama fili kartid inuu ta meel fariisto 24 saac standby u ahdo telefoonka xamar ka soo dhaca iyo hawsha loo diro kama fili kartid in intaan joogin New York muddo gaaban usbuuci haddaan qiyaaso 4-5 martiqaad ayaan tegi jiray kuwa kaloona teginna way jireen marka safiirku ku marti qaado la soo cashayso intaasoo safiiru marti qaado mid kaloo ayaa ka mid ah marti qaado waa inaad maalin marti qaado adiga mar walba ma noqonaysid marti ma ahaanaysid budget badan ay baahan yihiin maalin walba waxaa lagu taagan yahay suit iyo tie iyo shaati cad ayaa lagu taagan yahay qofkii kiradii gurigiisa ka wareersan budget uu ku iibsado lacag ku iibsado uma haysto maalin walba dhar u diyaara oo shirarka ku tago
taasoo ka mida gunnooyinka uu xaq u leeyahay saddex iyo diblomaasiyiintu oo sharciga arrimaha dibadda la baasgareeyo ku qoran laakiin aan la bixin culaysyo badan ayaa jira oo miisaaniyadda isugu soo aruuraya dowlado naga kabaa jira miisaaniyadda safaaradaha qaar waa uga mahad celinaynaa laakiin dhaqan wanaagsan maaho dowladda ku socoto wakiil halkan lagugu soo dirsaday markaad adigu mushaarkiisa bixinayso haddii wakiilkaasi su-aalo badana ka imaanaya shaqada uu qabanayo marka in soomaaliya ay yeelato safaarado ay iyadu biili karto kuna filan tahay waa laga maarmaan arrin hadda gacanta lagu hayana ma ah macnaha lagu filaaday weli ma ah taasi waa ka mid culaysyadana haysta culaysyadana haysta waxaa ka mid a inkastoo asagana shaqo badan aan ka qabanay baasaboorkeeni soomaaliga oo waddamada qaar aanay ama aqoonsanayn ama culays dheeraada ay saarayaan qofka sita anigu maraykanka dhowr jano tegey baasaboorka soomaaliga ku tegey viisadii la diiday in lagu dejiyo waraaq gooniya ay ku qoran tahay waan tegey markaan la sheekaysanay waxaan ihi war baasaboorkan waad aqoonsan tihiin sababtoo ah warqadan keligeed kuma safri karo ameerika kuma soo geli karo waxaan ku imaanayaa baasaboorka iyo warqadda labo warqadda waxaa ku qoran baasaboorka iyo nambarkiisa marka haddii baasaboorkaas waa aqoonsan tihiin ma boggaan isaga dhejisaan viisada doodo iyo shaqo noo taalla weeye marka baasaboorka soomaaliguna arrimaha culayska oo na hor yaalla oo socdaalkeena saameynaya oo viisooyinkeena saameynaya ayay ka mid tahay viisada haddii aan in yar ka taabto maadaama aan soo hadal qaaday dalka indiya waxyaabahan kala soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa viisada dadka xanuunsan iyo ardayda oo nairobi loo aado mar walba oo kharash badan iyo waqti badan oo kale iyo viisada nairobi oon sahlanayn culayskeedu ay leedahay inay muqdisho noo keenaan taasna way ballan qaadeen assessmentina way sameeyeen inkastoo san hadda bilaaban in xamar lagu bixiyo viisadii laakiin waa howl aan mar dhow haddii eeb yidhaahdo toddobaadka hadda lasoo dhaafay xataa waan ka wada hadlaynay safiirka indiya marka adigu howlahaas ayaa ka mid a howlaha noo qabsoomay si kooban marka aan u dul maro wixii su-aalaha soo baxana waan ka jawaabi doonaa arrinta goonida la ii weydiiyey waxaan malaynayaa xajka inay ahayd xajka iyo servicekiisa ama adeega xajka si kooban haddaanu idhaaho su-aalaha faahfaahintana waa ka bixin doonaa waa sababtaan u keenay qunsulka guud usoo kaxeeyey wasaaradda arrimaha dibaddu hadda kaalinta ay ku leedahay howlaha xajka waa mid aada iyo aada u kooban siday saxda ahayd maaha laakiin waa mid aada u kooban annagu lacagna kama qaadno dadka xajka taga adeeg ka badan in marka ay xajka tagaan oo dalka dibaddiisa ay joogaan haddii qofka xajka yimid xaajiga haddii dhibaato qabsato ama wax la soo gudboonaadaan aan ku talagalkiisa hore ku jirin in aan usoo gurmano oo markaas haddaan wax ka qaban karnana ka qabanno haddaanan ka qaban karina oo qusuladdu aanan ka qaban karina la soo wadaagno dowladda iyo dalka intiisa kale ayaa hadda hawshan ku kooban tahay kaalinteena waxay ku kooban tahay kaalimo maaragtay heshiisyadii waxa dhacaya inaan si guud oo duljoog ah aan uga warqabno marka ay dhacayaan laakiin hawshan waxaa xooggeeda gacanta ku haya wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradaha kale ee soo geli karay arrimaha ka khuseeya waa arrimaha dibadda waa caafimaadka waa amniga oo qaybta socdaalka kasoo gelaya iyo immigrationka iyo wasaaradda maaliyadda waxaa iyaduna kaalin ku yeelan karta wasaaradda gaadiidka oo diyaaradihii iyo socdaalkaas dhinac ka saameyn karo marka annaga runtii faahfaahin badan oo aan hawsha kaalin badan oo ku leenahay ma jirto laakiin haddii su-aale layga weydiiyo ama faahfaahin layga weydiiyo waa mid aan geli doono waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid a howlaha dhexda noo marayo maamuusku ka mid yahay iyo sharciga hirgelintiisa ka sokow waxaa ka mid a in markii ugu horreysay safiirada la magacaabi doonaa ay safiiro wasaaradda ka shaqeeya ay ku jiraan oo dad wasaaradda ka shaqeeya oo khibrad leh oo mudan oo ka bixi kara oo raba in maaragtay fursadooda la siiyo oo marar badan la dul maray in fursadooda la siiyo dhibaatooyinkana haystana waxaan ka booday in dad badan ay waraaqa haystaan loo qoray
oo mas-uuliyiin naga horreysay u qortay ama wasaaradda ah ama meelo kale ah ama madaxdii dalka ah ama golayaashii dalka ah oo ku magacaaban xilal safaaradaha ah dibadda ah kuwaasoo dhowr sano aan weli tegin oo meesha joogay marka dad tiro badan oo magaalada jooga oo waraaqa haysta oo dalbaya wax awal loo ansixiyey ama loo saxiixay in ay helaan arrintaan uga baxayo oo ugu dambeysa waxa weeye arrinta in badan laga hadlay malaha dadka ka hadlay annaga ugu yaraynan malaynayaa ku lug lahayn ee ku saabsan khilaafka diblomaasiyadeed ee khaliijka ka dhacay arrintaas waxaan rabaa in aan briefing yar ka bixiyo haddii su-aale laga qabana waa ka jawaabaya waxaan rabaa inaan caddeeyo waa marka ugu horeyse dowladda soomaaliya khilaafkaas khaliijka ka dhacay kama qayb gelin waxaan taagannahay meeshii aan taagnayn intaan khilaafkaasi dhicin intaan dalalkaasi iskhilaafin meeshii aan taagnayn ayaan taagannahay maxaan ula jeedaa dalal wada saaxiibadeen ah xiriir dhow aan leenahay qaarkood aadaan isugu dhownahay ayaa khilaaf dhex maray qaar ka mida waxay naga codsadeen kuwii kale inaan khilaafka ayaga gacan ku siino kuwa kale ka hor nimaadno annaguna waxaan istaagnay xaaladda maanta aan ku jirno tabarteenna danteennu kuma jirto khilaaf dalal kale ka dhexeeya oo dalalku wada saaxiibadan yihiin inaan horboodno oon ku beerno annagu waxaan ka gaabsannay ama ka baaqsannay inaan ka qayb galno dagaalkaas inaan colaadaas dhex martay dalal kale oo saaxiibadeenna aan ku biirno qaarna la soo jirsanno qaarna la dirano meesheenni aan awal joognay ayaan joognaa khilaafka dadka ku talinay in laga qayb galo ama iyagu af ahaan uga qayb galaya inta muuqata waa dadka ku eedeynaya dowladda in aan annagu ka baaqsannay ayagu way kuwa ka qayb galaya oo dhinac la jirsanaya dhinacna la diriraya ma aha dowladda waxay taagan tahay meeshii ay taagnayd intaan khilaafkaasi bilaaban maxaan u istaagnay qayb ahaan waxa weeye in xiriirka soomaaliya ay dal la leedahay aanu dal kale ku xirnayn dalal kalena ku xirnayn iyada iyo dalkaas uu ka dhexeeyo si dal walba xiriir nala leh uu u arko hadduu xiriirkeenu wanaagsan yahayna inaan haynayno hadduuna xumeeyana inaan iska qabanayno laakiin haddii naloo arko xiriirkeenna dal nagala dhexeeya in dalal kale ay go-aan ka gaari karaan taas kalsooni iyo xiriir waddanku lala lahaan karo iyo isku hallayn muddo dheer ah oo istaraatiijig ah ma jiri karto marka dal walba oo soomaaliya xiriir la leh isaga iyo annaga ayaa xiriirkaasi naga dhexeeya cid kalena ma khuseeyo waa marka labaad xaaladda maanta aan marayno xaalad ma aha aan annagu u aragnay in danteennu tahay khilaaf dalal kale ka dhexeeya khilaaf nagu filan meeshanu yaallaa kan ayaa xal nooga baahan dhibaato nagu filan halkanay taallaa argagixiso naga badan halkanay taallaa oo inaan iska qabanno u baahana marka probleemka dalal kale ka dhexeeya waxaan u rajaynaynaa oon ugu baaqnay inay wada hadal ku dhammaystaan waxaan ugu baaqnay inay ururka jaamacadda carabta ka wada tirsannahay oo toddobaadkan ku kulmaya qaahira in ay horgeeyaan oo halkaa lagu xalliyo waxaan ugu baaqnay ururka islaamka ka wada tirsannahay oo fadhigiisu sacuudiga yahay in aan iskaashiga islaamka dalalka islaamka in halkaa lagu xalliyo laakiin annagu aanaan noqonayn qayb ka tirsan colaadaas waxaan runtii aad iyo aad u qiimeynaya una qadarinayaa dowladda sacuudi arabiya oo aan jeclaysan go-aankeennin koowaad oo markii hore aan gaarnay laakiin nagu qadarisay fahamtay mowqifkeenna aqbashay cooperationkeennina inuu kor usii kaco maahane aanu hoos u dhicin oo deeqa horlena noogu deeqday ayaan runtii aada u qadarinaya una mahad celinayaa waxaana rajaynayaa in loo fahmo danta soomaaliya mar walba meeshay taallo markii weliba dalal kale ay qaabilsan tahay siyaasiyiinta iyo muwaadiniinta soomaalida waxaa habboon markay dhexdeena tahay siyaasad iyo kala jiidasho iyo doorashan waa meel markay dalalka caalamka iyo waddankeenna tahayna waa meel wixii kale laisu sheegi karo gudaheenna waa meel laakiin in laga boodo dalka
ka shakhsi ahaan in dalka wakiil laga yahay oo kale loola macaamilo dalal kale waa wax laga qurxoon yahay in marka dalkeenu markuu nabad tahay iyo markay khilaaf tahay iyo markay colaad tahay iyo mar kasta in aan dibad markay noqoto inaan isku duubnaano hal cod leenahay oo halkaas coda noo hadlo waa dowladda wixii lagu saameyn kara lagu saameeya laakiin markii go-aan soo baxo in laysla qaado inay ku qurxoon tahay marka idinkoo mahadsan waxaa jeclaha wixii su-aal la qabo in lay weydiiyo diyaaraan u ahay waana mahadsantay